maantay idinkala soo qayb galo munaasabadan qaaliga ah oo ah daahfurka garabka haweenka iyo caleemasaarka madaxda cusub ee la doortay. waxaan hambalyo iyo bogaadin halkan uga dirayaa guddoomiyaha cusub ee garabka haweenka ee Daljir Maama Xaliimo iyo ku-xigeenadeeda Maama Aamina iyo Maymuuna. dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. waxaa kaloo idin rajaynayaa culayska la idin saaray inaad siduu yahay uga soo baxdaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinla garab galo kuwii lagu nagaado lagu nasto meel fiican reerkan dajeen Ilaahay idinka dhigo. wax badan ma rabo inaan halkan ka sheego. waxaan jeclahay inaan haweenka Soomaaliyeed iyo karaamada iyo sharafta ay leeyihiin wax yar taabto inkastoo madax qiimo leh oo yani iga cilmi iyo aqli badan halkan ay joogaan ayagana aan jeclahay inay sii kordhiyaan. haweenka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa karaameeyay oo suuratul Maryam ku xusay ammaan intaa ka badan oo loo jeedin lahaa ma jirto ayaan filayaa. haweenka Soomaaliyeed weligood waxay ahaayeen hormuud waatan barbaarisay madaxda waddanka kuwa hadda jooga iyo kuwa dhalan doona iyo kuwa kaleba. haweenka Soomaaliyeed waxay dhaxda u xirteen sidii qaran Soomaaliyeed loo heli lahaa. waxay la dagaalameen gumaystayaashii waxay iibin jireen. waxaan hadda halkan nala fadhiya xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo jeclahay inuu wax ka taabto waagii SYL iyo xornimadoonkii halgankii loo galay xornimada xaawataako Allah u naxariistay haliyadii iyo haweenkii muryadoodii iyo dahabkooda u iibin jiray si loo helo calankan maanta aan harsanayno oo hadda nasiib darro lagu murmayo maxay ahayd midabkiisu ma buluug baa xadigta ku taala mise waa cadaan. nasiib darro lagu murmayo inkastoo maanta calankeenu uu yahay calan aan maxay ahayd lagu murmi karin. dadkii ka soo qayb galay oo dhaxda u xirtay haweenka hormuud u ah waxaad la socotaan xikmad carabi oo dhahaysa waraa kulli rajulin cadiim imra'a. nin walbo weyn oo madax oo qiimo iyo qaaya leh haweenay baa ka dambaysa. la'aanteeda inaanay waxba socon karin waad la socotaan. marka maanta sharaf gaar ah ayay ii tahay inaan haweenkii Soomaaliyeed oo garabkii Daljir ah oo hubaysan oo qalabaysan oo doonaya inay karaamadoodii iyo sharaftoodii Soomaaliyeed soo celiyaan. waxaad leedihiin hogaamiyayaal oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa idin dhaliyay. maalintay yar tahay waxaan hadda kala hambalyo u dilaayo kale yani Xamdi oo ah gudoomiyihii hore ee kumeel gaarka ah waa gabar dhalin yar ma sha Allah tabaaraka Allah. Ilaahay cilmi aqli siiyay ku tusaysa micnihii kalsoonida iyo shihaamada ay leedahay. gabarnimadeedu marka waa muhiim. hadda ka hor khudbadii meesha ka soo jeedisana waxay noo sheegtay haweenka waagii asxaabada ilaa iyo heerkan aan joogno heerka ay bulshada ku leeyihiin. laf dhabar ayaa noo tihiin la'aantiinu ma dhaqaaqi karno ee hore u socdo baan idin leeyahay. dowladihii rayidka ahaa dowladihii kacaanka ee na soo maray waxaad la socotaan haweenka kaalinta ay kaga jireen. waxaan garaadsaday oo aan caqli yeeshay iyagoo iskaa wax u qabso hormuud ka ah dhismayaashan faraha badan oo hadda dawladdu leedahay oo hadda la iska bixbixinayo bilaa macna oo dadka loo qorqorayo la siinayo meelaha ku yaala wasaaradaha ay ka mid yihiin wakaaladaha ay ka mid yihiin. dadkii dhisay haween baa hormuud u ahaa. ayagaa dhaxda u xirtay shamiindada shubahay sakeelka gacanta ku haystay dhismahoodii qayb ka qaatay. bacaad celintii sharambood bay qayb ka qaateen. abaarihii dabadheer bay ka qaateen. mashruuc walba oo horumarina oo bulshada Soomaaliyeed leedahay intaan garaadsaday hormuudun bay ka ahayd. waxay qayb ka ahaayeen hormuud ka ahaayeen qaybna ka ahaayeen adeega bulshada. macallimiin bay ahaayeen umulisay lahaayeen kalkaaliyaal caafimaad bay lahaayeen
kuwa gobolka banaadir ilaa maanta nadiifinayo oo raggu ka xishoonayo annaga aan ka xishoonayno ay lahaayeen marka waxay ku tusaysaa wax walba oo ay maslaxadi ku jirto inay hormuud u tahay waxaa kaloo rabaa inaan ka xuso halkan haweenka Soomaaliyeed inay karti dheeraad leeyihiin oo ay haweenka Afrika weligoodba hormuud u ahaayeen oo annaga ragga ah aan run ahaantii aan maxay ahayday ku tacadinay hoos u dhignay hawaalkooda ka dhacnay waxaan halkan ku xusayaa haweeneydii ugu horeysay oo diyaarad duuliso oo Afrikaan ah inay ahayd Soomaaliyeed oo la yiraahdo Asli Xasan Cawaad Asli Xasan Cawaad haddaad la socotaan waxay ahayd haweeneydii ugu horeysay oo diyaarad duulisa Afrikada madow taasna waxay ku tusaysaa haweenka Soomaaliyeed weligoodba gadaal inay ka fariistaan steerinka ee xagga dambe fariistaan ma yeeli jirin hormuud baad tihiin waad u dhalateen ilaahay baa idin siiyey waxaad xaq u leedahay inaad soo qabsataan idinka rabnaa haweenkii kartidaasi sharafti lahayd awoodda lahaa caqliga iyo karaamada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku galaday ayaa dagaaladii markii sokay ay dhacayn waxaa la soo gudboonaaday dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan takrifal tacaddi kufsi iyo waxyaabo fara badan oo run ahaantii aanay istaahilin inay halkii ka cararaan gabadha Soomaaliyeed oo 100 halaad oo geel laga bixin jiray inay banaan cidla joogto haddaad tagtid meelaha qurbaha kuwa sii tahriibaya meel walba maanta in gabdhihii Soomaaliyeed oo quruxda iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharafta siiyay inay maanta meel walba ku baaba'san yihiin waxaan rabaa manoo ka faa'iideysanaya munaasabadan sharafta leh haweenka garabka haweenka ee Daljir agab baad haysataan inaad ka faa'iideysataan oo aad soo celisaan gabdhaheena quruxda badan oo qurbaha ku gumoobay